بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا كحرن جنالka qiila official kusoo dhawaada qisadeena maanta oo ah imaamkii hantiilaha ahaa bisna faqiiroway ka hor inta barnaamijka gudagalin subscribe like iyo share ka dhankiina ha ka ilowina si dhiirigelin u noqoto imaam maxamed bin suuriin ayaa waxa uu kamid ahaa culimada iyo hantiilayaasha uga caansan ee magaalada Basra isla markaana ka ganacsan jiray malabka imaamka ayaa mid ka mid ah fuustooyinka uu ku keesan jiray malabka oo gaarayay 600 iyo fuusto ayaa waxa ku dhacay dooli ama jiir waxyaabaha dareeraha sida caadiga ah hadduu ku dhaco dooli ama jiir waa in la daadiyaa imaamkii ayaa loo bandhigay inay adkaatay in laga garto fuustooyinkaasi midda uu dooligu ku dhacay wuxuuna ku jawaabay in la daadiyo fuustooyinka idil imaamkii ayaa wuxuu ka mid noqday dadka fuqarada ah ee ku nool magaalada Basra muddo kadib ayaa dadkii magaalada ay ugu yimaadeen imaamka inay kaga tacsiyeeyaan qasaarihii ku dhacay imaamka ayaa ku jawaabay tani waa dambi aan galay misna aan sugayo ciqaabteeda muddo dhan 40 sano imaamka ayay dadkii weydiiyeen waxa ay tahay dambiga uu galay isagoo ugu jawaabay maalmaha ka mid ah ayaa waxaan ku jajeesay nin faqiir ah waxaana ku iri faqiir baa tahay dulucda sheekadana ayaa waxay tahay in haddii hanti ilaahay ku siiyo aadan ku jeejeesin dadka dhibaataysan ee u nugul afkaaga waxa ka soo baxaya guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa sheekadeena maanta ama qisadeena maanta inta qisadana midaad xigayna ku kulmi doono nabadgelyo